shir ay jaaliyadda ogaadeenaya ee waddankaasi koonfur africa siiba faraceeda magaalada yutnig ay shalayta isugu timid ayaa lagu soo bandhigay filimkii silent cry oo ay halkaasi ku daawadeen dad aad u tiro badan oo ay ku jireen dad u dhashay waddankaasi koonfur africa warbixin ku saabsan daawadashada filimkaasi iyo weliba codod laga qabtay qaar ka mid a dadkii South Africaanka ee ka soo qayb galay daawashada filimkaasi waxaa inoo haya gudoomiyaha jaaliyadda ogaadeenaya ee waddankaasi koonfur africa cabdiraxmaan filimka silent cry ayaa maanta waxaa jaaliyadda ogaadeenaya oo soo qaban qaadatay shir aad u ballaaran oo isugu yimaadeen Soomaali aad u fara badan iyo dad South African ah shirkii ugu horeeyay ee isku goob wada fadhiistaan dad South African oo daawanaya ama dhageysanaya khudbado ama filmo ku saabsan qadiyadda ogaadeenaya iyo dhibaatada loo geysto Soomaalida ogaadeenaya ayaa maanta wuxuu ka qabsoomay magaalada Yutnig hoolka weyn ee municipality hall ee ku yaala magaalada Yutnig dhexdeeda marka uu shirku gabagaboobay ayaa waxaan weydiiyay dareenka dadka South Africaanka ee ka qayb qaatay shirkaas sida ay u arkaan maadaama ay meesha ku daawadeen filmaano aad iyo aad dacati fara badan oo ka muuqdo waxaan su-aasha u horeysay aan weydiiyey Mr. Chris sida uu arka dhibaatooyinka. Oh yes, what I've seen there is a terrible situation from Ogaden, and the most important thing that we need to do now is to meet with the structures of this area so that they can see that in order for them to be helped in that situation. How is the relationship with the Ogaden community of South Africa and South African people? Regarding the relationship, we are starting now to move forward because it is our first step now to sit in this occasion, and we are moving forward because we already had plans of going forward and taking the message forward to other people, which means we do have a relationship with them now. sidoo kale waxaan dareenkiisa aan weydiiyey in lagu magacaabo Ledocus oo ka mid ah dhalinyarada Coral Bush sidaas oo kale ayaan isagana waxaan weydiiyey su'aalaha balsida uu wax u arko. Yes, on the film, they are seeing terrible things, and I can't explain it, my father. Something that has happened there is as if there is no God, and people are hurting others, and it's like it's unexplainable. It's unexplainable. su'aalaha aan weydiiyey dhalinyarada South Africaanka ayaa waxay dareenkooda ku cabireen aad iyo aad ay wax yihiin dhibaatada ay arkeen ee loo geysto ummadda Soomaalida reer Ogaadeenaya jaaliyadda Ogaadeenaya koonfur Africa ayaa waxay bilowdeen difaac xooggan oo ka dhaxwada dawladda iyo community-ga dhinaca kale magaalada Yutnig ee xarunta jaaliyadda Ogaadeenaya ee koonfur Africa ayaa shalay waxa ka socday dhaqdhaqaaq xooggan oo ay wadaan ciidamada booliska South Africaanka iyo qolada migration taasoo Soomaalida dhibaato fara badan shalay ka soo gaadhay halka lagu xidhay dukaamo aad u fara badan gaar ahaan tuulada Langa dukaamo ilaa tiradooda ay gaaraysa 20 ayaa shalay albaabada loo laabay taasoo Soomaalida aad iyo aad uga argagaxday iyagoo filayay iyo laga cabsoonayay inay boolab ay dhacaan maraan la kulmay dad kuwa dukaamada iskala ka mid ah waxay ii sheegeen in la weydiiyey sharcigooda iyo sharciga dukaanka halka Soomaalidu ayna ku ganacsadeen shatiga ganacsi ama sharci ganacsi oo ay yihiin dukaamo aad u yaryar. Cabdiraxmaan Saciid, Radio Xorriya, Koonfur Africa. sida aad warbixinta gudoomiye cabdiraxmaan ba ku maqlayseen waxa maalintii daraata ahayd waa sabtidii la soo dhaafay albaabada la iskugu dhuftay in ka badan 20 dukaan oo ay lahaayeen ganacsadayaal u dhashay Ogaadeenaya oo ka ganacsada tuuladaasi Langa Greenfield. maxamuud sheekh maxamed wali oo ka mid ah milkiilayaasha dukaamadaasi albaabada la iskugu dhuftay maalintii sabtida ahayd ayaanu weydiinay sida ay wax u dhaceen. dukaanada way noo soo galeen way naga xirxireen dukaanada sharci darra dukaanada ku haystaan guryahana waan duwanayna ba dhahaan saadarteeduna wax xirxireen dukaamada. goormo dhacday arrintani? shalay 24 bishii 2010 bay dhacday markay duhurka salaadii duhurateedii ba dhacday arrintaas. marka ma iyadoo dukaamadu furan yihiin bay idin yimaadeen ciidamada nabadgelyadu oo ay arrinka idin sheegeen ma dukaamadiisa isla markiiba ma quful bay ku taageen mise way idin sheegeen maalintii ugu biinsaneed oo sabti ahayd bay arrintaasi dhacday way noo yimaadeen way naga xidheen dukaanadii wixii aan ganacsi aan lacag meel loo tiilayna inay xoog u qaadaan bay dabceen waana ka qaatay lacagtii jeebadaan gashaday lacagtii waxayna yidhahdeen lacagtaan baarina inay taagtahay in kale kaan bay yidhahdeen ma keenayaan goyn lacagtan iyo wada dhacaysaan alaabta la dhacay waxay ahayd sigaar aangadii baa la dhacay iyo airtime iyo wixii meeshii dhex yiila waa la qaatay wixii kale aan ka gaari karayeen iyagoo sii alabsanayo intay lacagtii ku dhigeen ayaan ka dhuftay oon yaan qaatay lacagtii iyada ahayd.
dukaamada la xidhay ee iridaha la iskugu dhuftay ee ay leeyihiin ganacsadayaasha u dhashay ogaadeen iyo waa imisa waa hadda tiradooda aada uma koobi karo laakiin waa 20 ilaa 20 dukaan waa la xidhay marka dukaamihii la xidhay 24 bishan aynu ku jiro weli ma sidii bay u xidhan yihiin mise dib baa loo furay aduu shalay oo dhan waan xidhnay ganacsigii shalay sidii lagu dhaafay maantana niskii hore waanu cabsanaynay niskii dambaanu furnay marka ma si sharci darraad ku furteen mise waa laydin ogolaaday xagga dawladda si sharci darraan ku furnay dawladda hadda nama oga haddii aynu ogaadaan kolba markay aan meelahaan soo agmaraan waanu xidhaynay markay tagaan waan furayni waan gartay maxamuud arrintani ma arrin ay dawladdu guud ahaan ka dambaysa South Africa mise waa tuulada iyo magaalooyinka aad joogtaan oo booliiska nabadgelyadu waxay iska soo hindiseen maya dawladdu kama dambayso waa corruption police khaas booliska gaar u ah saa weeyaan oo xaafadana keliya ah waan gartay maxamuud marka meel aad uga dacwooteen iyo cid aad dacwadiina u gudbiseen dukaamadan laydinka xidhay ama boobka laydinku hayo ma jiraa maya meelaan hadda uga dacwoonay maanaan weli maanaan uga dacwoon guddoomiyihii iyo dadkii meesha uga sarsareeyey maan hadda hawshaas aan u dirnay waan gartay maxamuud adiga iyo dukaamada kale la xidhay iyo kuwa kale ee ku yaala tuuladaasi ama magaalooyinka idin dhowbaa maxaa taloo hadda dukaamadii maadaama haddii la ogaado mar labaad laga yaabo in laydinka xidho maxaa qorshe idin ah walaalow hadda wixii qasan maaha inaan qorshaha wada gaano oo Soomaalidu inta badan wax isku xidhan maaha marka community-ga dadka noogu sarsareeyay gudoomiyihii iyo waa la wada joogaa marka arrinta wata shibaan ka yeelanaynaa Cabdi Fataax oo isaguna kamid ah milkiilayaasha dukaamadaasi albaabada la isugu dhuftay maalintii Sabtida ahayd ayaa noo sheegay in ay dukaamadii dib u fureen iyagoo aan amar ka haysanin booliiskii markii horeba xidhay asal dukaamadu way baadheen ba karafon sigaar la tageen okay waxaad ii sheegtaa shalay taqaabkii la idinku yimid wixii la idin yiri wixii la baadhay wixii wax laga qaatay shalay toola wixii lagu yimid waxay ahayd sharci malihidin oo miisan malihidin ay ahayd dawladuna way ogtay wadanka dhanba wax sharci la-aan dukaamada ay ku joogaan ilaa Cape Town ilaa Joburg ilaa Gauteng dukaamo yaryar oo sharci qaadan kara ma laha dadii nooma ogola sharcigiiyo dukaanka in la weyneeyo la dhiso ayay doonaysaa dawladii markaan municipality tagay waxa la dhisa oo ka dhiga buildingkiina dadkii ahaa ma ogola meesha waan gartay Cabdi Fataax laakiin lacag ku dhisano waan gartay Cabdi Fataax laakiin soo leeyahay kama gar joogo hadii la yiraahdo dukaamahan aad ka ganacsanaysaan sharci aad ku ganacsataan ma haysataan joogitaankii wadanka ee dhanaana sharci aad ku joogtaan ma haysataan hadii la yiraahdo soo leeyahay kama gar joogo وانا لقوا si wanaag oo jooga laakiin meeshaan ka ganacsanayeen waa meel location waxa weeyaan sigalaha ka jira oo soo afkaankuna wadanka inta ku ganacsadaan midda kale dukaan soo afkaan laba tiin dukaanadii Soomaaliyeed baa la tagay waan gartay South Africa waxa weeyaan arrintan waxay ka socotaa police college police station bas weeyaan oo laanga location ka waa inta police station oo kiisinayba waan gartay Cabdi Fataax South Africa wadanka ayaa iska laho dukaamada wadanka ayaa wadankoodii weeye laakiin idinku hadda maxaa idin qorshe ah oo aad arrintaasi hadii ay joogsan weydo ama la idinku soo noqdaba maxaa idin qorshe anaga waxaan qorshahan maaragtay dawladda maaragtay ay sharci nasiisay ayaana qorshe waa gartay sidee wax shalay idin soo gaadheen markii dukaamaha la xidhayay wax dhaco la idin geystay ma jiraa dukaamaha la xidhay waa imisa sidee wax idin gaadheen waxaa loo geystay maxaa ahaay dadkii dukaanka intay soo galeen booliisku iyo nimankii maaragtay municipality-ga yaa waxay wixii kala toona sigaar ay dukaanku arkaan way qaadanayeen aad sharci darrad ku iibinaysa sigaarka waa inay iska qaateen marka alaabtaasi sigaarka iyo waxa ay qaateen ma stationka la geeyey oo lagaga daba tegay ayaga qaatay maya iyaga qaatay maca lacag baan ka reebnay lacag xoog ku qaateen wiilas baa la dagaalamo lacagtii inay ka qaatay lacagtii xoog ay ka qaadan jiray marka dukaamadii shalay amarka ladinku siiyey inaad xidhaan maanta dib baad u furteen maanta waa la furay ha dadka South Africa ee degan tuulada Silanga Greenfield ayaa iyagu u arka albaabada la isku dhuftay dukaamadani in ay iyaga lid ku tahay iyagoo u arka in dukaamada South Africaanku aysan wax ka iibsan karin ama ay qaaliba ku yihiin dadka shacabka ee dukaamada ka adeegtay wax ka iibsan dukaamada aad bay uga muujiyaan macnaha inay ka xun yihiin sababta dukaamada sida South Africaanka wargala waa dukaamo qofkii dantiisa siduu lacag u wato wax weeyaan garanaysaa waan gartay dadkuna macnaha aad bay uga dukaamada kale ee South Africaanku waa dukaamo saacadaha lagu furo saacadaha lagu xidho kana waa dukaan macnaha iska Soomaali oo kala xilligu doono macnaha furayo oo waqtigiisa u dheereeyo midda xaaladan ma aha xaalad ka jirta wadankooda maaha waa location kan oo khaas ah waxaa la aaminsan yahay ninkan
xerada booliska inuu yahay nin ganacsata oo kula dukaamo location dhexdiisa meelaha ay Soomaalida ka ganacsato marka hadii jeer marka la isku dayo in laga hortagana wuxuu isku dayaa macnaha in pressure-ka aan dabino markaan pressure-ka ku guulaysan haddana markii ay ka koorto isku dayaa haddana inuu abaabulo marka kolba maalmaha businesska ay Soomaalida dhaqayaan isku dayaa inuu ka faa'iideysto oo dukaamada ka wada xiro waatahay dhagaystayaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah milkiilayaasha dukaamadii ka badnaa 20ka ee sabtidii la soo dhaafay albaabada la isku dhuftay walow si tuuganimo ah ama aan sharciba ahayn ay dib ugu fureen qaarkood dukaamadaasi